taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa xilkii ka qaaday taliyay ciidanka danab ee deegaanada Jubbaland gaar ahaan kuwii ku sugnaa magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka Jubbaland. Ninkan oo lagu magacaabo Carab Dheeg Axmed wuxuu ka mid yahay saraakiisha ciidamada gaarka ah ee kumaandooska Soomaaliya ee danab si gaar ah wuxuu ahaa taliyaha ciidanka ee qaabilsan deegaanada Jubbaland gaar ahaan kuwa ku sugan magaalada Kismaayo ee xarunta maamulkaas oo ah xarunta ugu weyn iyo taliska ugu weyn ee Jubbaland ee ciidanka danab. waxa uu eesaday kadib markii maalmo ka hor oo ka soo muuqday muuqaal oo ku sheegayo in uu dawladda ka waayay dalacaadii u baahnaa liiska askar oo gudbiyana sidoo kale aysan helin laakiin si degdeg ah dalacaad loogu sameeyay askartii Jubbaland iska dhibtay ee ku biiray dawladda Soomaaliya. warkaas ma ahayn hadal ciidan markii loo eego shuruucda ciidamada oo aan looga baran ama aysan fasax la'aan ka hadli karin warbaahinta iyadoo sidoo kalena la aaminsan yahay in sarkaalkan uu ku milmay xiisadda u dhaxaysa Jubbaland iyo dawladda federaalka ah ee Soomaaliya. sida aan xog ku helnay taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa xilkii ka qaaday ninkan waxaana loo dhiibay sarkaal kale oo ka tirsan ciidamada kumaandooska Soomaaliya ee danab. ciidankan waxaa tababaray oo qalabeeyay gacantana ku haya dawladda Mareykanka waa ciidanka ugu tayada iyo tababarka wanaagsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo guud ahaan ciidanka qalabka sida laakiin maamulka ciidankan waxay hoos tagaan wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya. waa ciidamada loo diro goobaha halista badan waana ragga al-shabaab meelaha ay ku jiraan ugu gala godadka iyo magaalooyinkooda xataa intay tagaan ka soo dhex dagaalama beegsadaan xubnaha sare ee kooxda al-shabaab waxayna Mareykanka ka caawiyaan dhammaan howlgallada ay Soomaaliya ka fulinayaan. waxay ka mid yihiin ciidamadii guulaha waaweyn ka soo hooyay dagaalkii ka dhanka ah kooxda al-shabaab waana ciidanka sidaan sheegnay ugu tababarka wanaagsan Soomaaliya haddana waa ciidanka ugu mushaaraadka badan ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed. sarkaalkan oo ku sugan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa isagana dhankiisa waxa uu sheegay inuu eersado hadalkaas waxaana dhaliilay madaxda dawladda Soomaaliya laakiin waxa ay qaraabo yihiin madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe tagistiisa magaalada Kismaayo in ciidankaas uu hogaamiyana waxay ku timid dalab iyo isku xir ay sameeyeen maamulka Jubbaland ama codsi Jubbaland ay fulisay sababtaas ayaana keentay inuu ku milmo arrimaha siyaasadda ee u dhaxaysa dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland isagoo weeraray sarkaalka dawladda u qaabilsan deegaanada Jubbaland gaar ahaan taliyaha Xasan Ciraaqi oo ku sugan Ras Kamboni. hadalkan ayuu jeediyay maalmo ka hor waana mid ka sababay in xilka looga qaado. bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam. haraba dhowr qodob oo yar inaan goobta maanta ku duubno ummadda Soomaaliyeed la wadaago. dhowrka qodob waxay yihiin kow xaaladda deegaanadan Jubbaland ee hadda aan ka howlgalayno iyo sida ay tahay deegaanku waa nabad wax dhib oo ka jiraan ma jiraan. nimankii argagixisada baa waayahan dambe xogaa waxaad moodaa inay xogaa dhiirigelin heleen oo markay xogaa arrimaha siyaasadda ay istaageen iyo soo laba kacleeyeen marka maanta waxaan qaadnay howlgal aan ku nadiifinayna kana hortayna arrintaas. waxaan maray tuulooyin badan oo ka mid ah deegaanada gobolka Jubbada Hoose sida Cabdidhoore, Barxaani, Qudus iyo Yaaqdabayl iyo kuwa lamid ah kuwaas oo aan rabno inaysan ku soo dhawaanin dalkan iyo dadkan maalin walba iyo habeen walbana waa joognaa dhaqaaqoodan waa la soconaa insha Allah taala inta aan joognana waxaan u joogi doonaa inaan dalka iyo dadka iyo diinta difaacno. sidoo kale xaaladaha guud waa intaas. qodobka kale waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed la wadaago ururkan 162 waxaa la aasaasay oo uu ku soo beeray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed 2018 2016 la aasaasay laakiin xilligii ay ku soo beereen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed lambarka iyo nidaamka shuruucda xoogga dalka ku beereen 2018 bay ahayd laga soo bilaabay maalinkaas ilaa maanta. waxaan u maraynayaa dee waxa ay qabteen waa wax marag magdoon ah oo ummadda Soomaaliyeed ay marxaati ka tahay inaan anagu sheegnana aan macno weyn ku baxmana weyn noo sameeynin. waxay dileen argagixiso 100 kor u dhaafaya waxay soo furteen hub u badan waaweyn oo dhaafaya 10 iyo dhowr waa diiwaan gelinay xoogga dalka ku jiraan hadda ciidankii baa dib ugu hubaysan. hubka yar yar isagana hadalkiisa badaa waxay yidhi argagixiso inta la eg bay dileen muddada ay shaqeynayeen. waxaan u maleyn hadduu jirana wuu yar yahay urur la mid ah tusaale ahaan urur aan gaarikiisa argagixisadu qaadanin qori weyn oo kiisa ay argagixisadu qaadanin askartooda ama in la qabto ama in la jiitameedkooda la iska daayay aan midna la geysanin waxaan u maleyn inuu kow ka yahay yani weligeed ma dhicin arrintaasi. dagaalada aan galana dee waataan hubka ku furanay yani hub banaan iska yaallo cidna ay qaadan kartaa ma jiraan waa inaad dagaal dhabaca oo khatar gasho
waxaa shahiiday rag fara badan oo ururkan ka tirsanaa waxaa dhaawac rag fara badan oo ururka ka tirsan ilaahay inta dhaawacan ha noo caafiyo intii dhibatana ha u naxariisto runtii waa ragaanaan iloobi karin meesha ay naga yaalaan iyo kaalintii ay ka qaateen sumcadda iyo sharafta ururkan marka ururkani waa urur saasa shaqo badanna qabtay shaqo badanna qaban doona insha Allah tacaala waxayna u joogaan shaqadii loo aasaasay oo ahayd inay dalka dadka iyo diintaba ay difaacaan naftooda qaaligaana ay u huraan intaas kadib waxaan rabaa xoogaa cabasho ah ama codsi ah inaan u gudbiyo dowladdeeda federaalka Soomaaliya oo ugu horeeyo taliyaha xoogga dalka Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha qaranka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudanayaal sidaad la socotaan ururka shaqadooda waad ka wareysaan mar walbana waan isableed garaynaa waana mid aan taakadii kusoo gudbino laakiin waxaa jirtay muddaba arrin aan daba jiiqaynay oo xuquuqdii aan lahayn oo dallacaadeed inaanaan weli helin yaan rabnaa inaan maanta ummadda Soomaaliya u sheegno dowladda Soomaaliyana waxaan ka codsanayaa uu madaxweynaha sharafta ugu horeeyo ra'iisul wasaaraha ugu horeeyo taliyaha xoogga ugu horeeyo in saraakiisha ururkan la dalacsiyo dallacaada ay mudan yihiin la siiyo waa soo gudbinay magacadooda la hayaa haddana waa soo gudbinaynaa si ay dhiirigelin ugu noqoto saraakiisha iyo ciidankan oo ay argagixisada ee leynteeda iyo ka xoreynteeda dalka ay u sii laba jibaaraan waxaa taasi ku dhalaysay raggii lambarkoodu wuxuu ka bilaabmaa 20,000 iyo ka sii fog nin 20,000 iyo ka sii fog waddan ka bilaabma oo dhaawacmay oo dhintay oo rafaaday oo muddo intaa la eg dowladdiisa ka baryayay xidig inuu helo xidig welina aan xuquuqdiisa aan helin asaasiga ahayd markastoo aan soo gudbinana waa loo soo keenayaa iyo waxyaabaha la leeyahay arrintaasi runtii arrin aad noo taabatay waaye marka waxaan dowladda sharafta ku codsan lahaa cod dheer ku codsan lahaa in ragga la dalacsiyo markaas sidaa leeyahay ciidan baan nahay ciidanku structure buu leeyahay process la maru leeyahay oo dalacaada iyo wax kasta lagu codsado wixii oo dhan waan marnay muddada iyo ilaa hadda inta u taxaysana waan daba taagnay laakiin weli waxaan rabnay muusan hirgelin sidaa darteed baan nidhi bal maanta maxkamadda ugu cadaaladsan adduunka waxaa la yidhi waa baraha bulshada bal maanta la wadaaga dowladdiina in arrintaas ay idiin samayso waxaana nagu dhaliyey waxaan shalay arkaynay rag dhalinyara oo markii hore ka tirsanaa dowlad goboleedka Jubbaland oo maalin dhoweyd arrimaha siyaasadda dartood ciidanka dowladda ugu tagay oo shalay toole kabtano iyo laba xidiglayaal la siinayay annagana dee waxaa la lahaa kriteeriyadii ciidanka loo baahan yahay oo kan baa loo baahan yahay marka waxaaba nidhaahday dowladdu sidaa baasha ay u bixin karto dee idinkuna maad raadsataan oo aad waxaysaan mise dowladdu ciidankeeda daacad u taagan darajo siin mayse ciidamo kale ay darajada siinaysaa marka waxaan codsanayaa anoo taa ku sii dheeraanayn in raggaas rag dhalinyara oo dalkiiyo dadka inay u shaqeeyaan raba oo mudan in la dalacsiyo wey laakiin kuwa waxay moraal jabinaysaa oo ay niyadda ka dilaysaa oo ay daacadnimadii ay shaki gelinaysaa intaasoo sano dalka u soo halgamayay iyo shaki gelinaysaa sidaa la'aaligeed waxaan codsanaynaa raggaasna tooda way haystaan allah ha u barakeeyo ragganna waxaan u baahannahay inay tooda helaan ay xaqa u leeyihiin intaasoo jeer aan soo gudbiyey aan la daba taaganahay mar walba dowladdeeda sharafta leh intaa kadib waxaan ku soo gabagabeynayaa sidaa la socotaan xiisadda siyaasadeed ee dalku aad bay u akiran tahay oo u dhaxaysa dowlad goboleedka iyo dowladda federaalka arrimaha siyaasaddu waa wax marra dhaca marra kor bay u kacaan marra hoos bay u kacaan annaga ma rabna inayna saamayso ma rabna inaan ku melanno ma rabna inaan argagixisadii aanu ku jeednay ka jeedsanno waxaan rabnaa in argagixisadii aan jaanis la siinin waxaan cid walba u sheegayaa sargaal kastoo xoogga dalka ah mid kastoo Jubbaland madaxda siyaasiyiinta ee dalka joogta waxaan u sheegayaa oon ka codsanayaa si naxariis loogu codsanayaa argagixisada moraal ha siinina raggii saaxiibada ahaa ee walaalada ahaa ee isku dhinaca u jeeday ee cadowga iska garabsanayayna cadow ha isaga dhigina arrinta siyaasadda qori laguma xallin karo sida aniga ii muuqata ama aan dareemayo lama sheegin wax qori lagu soo xalliyay argagixisadaasna qori ku xalliyo oo ilaa haddaan daba wareegaynaa marka qorigu waxun buu sii fogayaa eedoon buu sii fogayaa dakanoon buu sii fogayaa marka xabaddu wax wanaagsan ma aha mana fiicna in hadda hawshaa lagu tartamee si kale oo ka qurux badan baa lagu xallin karee waxaan codsan lahaa in baasha lagu xalliyo nidaam wada hadala oo siyaasada oo qof waliba uu tanaasul iyo dalkiiyo dadka u naxayo oo u turayo hadday taasi dhacdo
waxay ku milmi doontaa meelo badan bay geli doontaa shacabkay ku milmi doontaa ciidamada ku milmi doontaa qof kasta oo wadani ahaa oo dalkan iyo dadkan wax ka rabay bay ceeb iyo cambaareen u sujoodi doontaa marka waxaa usan lahaa arrintaa inay dawladdu dib u fiiriso oo ay labaduba ay tanaasul sameeyaan oo ay dadka Soomaaliyeed iyo dalkan ayna moraal jabinin runtii cadawyo badan baan leenahay oo dibadda iyo gudahaba jooga cadawgaasaan nooga baahan in la dagaalamo in lala diriro inay la waxeeyo kaasaan nooga baahan intaa kadib waxaan rabaa inaan wax yar ku daro nin saaxiibkaya oo aan saaxiibkayla ah oo la yidhahda xasan ciraaqi yaa maalin dhaweed wuxuu ka hadlay Kamboni hadallo badan buu dhahay laakiin waxba igama gelin intaas laakiin hal waxaa nooga quseeyo wuxuu yidhi ururka boqol xildhibaanada Kismaayo jooga danab meelihii ay waagaan joogi jireen ay jireen ma joogaan mana gaaraan waxaan u sheegayaa saaxiibkay xasan danab horta iyadoo sidan un baad u timid oo sidan u shaqaynayso baad u timid markaad u imaanaysid raggii ku shaqaynayana annagoon baan ahayn aniga iyo inta hareeraha annaga taagan u baahay wax cilmi iyo caqli oo nagu soo kordhisayna maysan jirin shaqadana annagoon baa sii waday markii dambana markaad waajibaadkaaga gudan weysay kolley dawladdu iyadaa kaa qaaday hadday kaa qaadayna de cidda u garatay bay u dhiibtay oo aniga ah aniguna de intii aan awooday karaankaygaan ku shaqeeyaa hadday dawladdu ii garato inaana shaqo fiican qabanin iyadaa iga qaadaysa oo odhanaysa shaqo fiican ma qabanayside ka wareeg nin kalaa loo dhiibayaa waqtigeedaana sugayaa oo diyaar baan u ahay taas laakiin waxaan rabaa inaad ciidanka xagxagato sharaftiisa aad ku dheesho wax qurux badan ma aha waxaan rabaa inaan kuu sheego intaad ciidanka ka tagtay guulaha u gaadhay inay aad u badan yihiin lala soo koobi karin hadday noqoto dhul la xoreeyey bishii aad xilka lagaa qaaday bishii ku xigtay janaax cabdallaan u xoreynay maqraati baadna ka tahay waxaan kaa rabaa in inta ka dambaysana buulle xaaji baan u xoreynay howlgallo waaweyn oo rag badanna ku dhinteen cadow badan aan ku naafaynay baan qabannay oo harbowlo aan ku qabannay oo xagar aan ku qabannay oo walmaaro aan ku qabannay waxaasoo shaqaa ragga qabtay inaad ku tiraahdo ma gaari karaan meeshaan anigu gaari kari waa runtii waa nasiib darro weyn siyaabaha kale u hadal adiga kula quman laakiin ururkan iyo hadalkiisa iyo hawlihiisa waxaan u maleeyaa hadda waa laga bedelay taliyo guutaan u noqotay marka waxaan u maleeyaa wali isagii baa rabtaa hadda rabto waa kugu soo wareejinay madaxweynaha iyo taliyaha waxaan leenahay noo kala bedelo anigana guutada i geeye isagana meeshan uu jecel yahay oo aad u halayo saaxiibka lagu soo celiyo marka aad u mahadsantiin intaasaan rabay inaan la wadaago ummadda Soomaaliyeed iyo cid walba xumaaniga ma aha runtii intii aan qarankan u shaqaynayay niyadaan la ku kasi weyn baan leeyahay yoolkaan la mid kasi weyn baan leeyahay dawladda federaalka ciidankeedaan nahay iyadaa ka amar qaadanaa iyadaa u shaqaynaa dalkayga dadkayga u shaqeeyaa wix waajibaad oo la isiyoon weliga ka gaabiye ma jirin haddana kama gaabin doono intaan noole haddii ilaahay yidhaahdo aad iyo aad baad u mahadsantihiin intaasaan kuu soo gabagabaynayaa cadowganaguna waa al-shabaab iyo annaga meeshaan isku aragno dil basaa naga dhexeeya laakiin qof kale oo aan al-shabaab ahayn oo dalkan joogay nabad buu naga helayaa hadduu shacab yahay iyo hadduu ciidan yahayba nabad baa naga helayaa marka aad baad u mahadsantihiin intaasaan rabay inaan ummadda Soomaaliyeed la wadaago sharaf iyo karaamo korkiina ha ahaato allana ha idin barakeeyo intaasoo guulan waxaan ku gaarnay taageerada shacabka Soomaaliyeed iyo say noo jecel yihiin waxaan rabnaa guul walbo la gaadhayna ragga gaadhay ee qabta aniga mee waa raggan hareerahayga taagan raggaas anigu ma raba darajo maanta inkastoo dadkii aniga aan soo qoray ay maanta iga darajo sarreeyaan oo hebel iyo hebel la dhihi karo haddana darajo hanqal weyn uma taagayo oo darajo igu filan waan haystaa laakiin raggaan darajadooda raadinayo ee maalin iyo habeen aan gudbinayo waa raggaa shaqada qabanaya runtii xalay markaa howlaha arkeenna moraaljo badan iyo su'aalo badan baa ka imaaday marka madaxda waxaan ku codsan lahaa weli xal bay qaban karaane arrintaa inay hoos u fiiriyaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin intaasoo ku soo koobaya